أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على نبي الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم خير كل أنتم أكسن مركز لي وسيد عبد الرحمن شيخ حسن وعيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عاونا إن شاء الله وحن رجينا خيرين عن كهذا الغيب كله oo ku saabsan ama waan dhihi karo gabagabadii ma aqaan hal barnaamij iyo laba barnaamij wax ka damayn doona laakiin insha allahu tacaala saad caawa arki doontaan arrinta yajuuj iyo majuuj waan ka faraxalanay hadduu ilaahay yidhaahdo kolka arrintani saad ogtihiin waa 10 waxyaalood ee rasuulku sheegay sala allahu caleyh wasalam inaysan saacaddu dhici doonin ilaa nebigu buu yidhi sal alay wasalam 10kaas waxyaalood dhaco kolka culimmada islaamka macnaha in muddo gaar ahaan 500 sano ugu dambeysay hadduu ilaahay kuu roon yahay dhib weyn baa ka taagnaa in yajuuj majuuj la sii daayey waxaan idiin sheegay xadiiska dhowr jeer ku celiyey xadiiskaas aniga agteedu uu ka wen yahay sidaydana haddii lagu yidhaahdo waxaan rasuulka ayaa yidhi hadalkan sala allahu caleyhi wasalam bihadi alkalaam or bihadi alxadiis nebigaa yidhi haddii lagu yidhaahdo aniga su-aasha kaliyan weydiiya waxay tahay kitaabku ku jiraa ii sheeg xadiiskii iyo lambarkii masiix muslimba bukhaariba ii sheeg tirmidiba nisaa'iba macnaha sunnaheena kutubta aan leenahay weligii ma dhihin macnaha qofkiina maaragtay hadduu ilaahay kuu roon iskama dhegatirin iskama dhegatiro kamana boodo waxaan ku dhahan keliya kitaab ku jira ii sheeg haddaana hore u maqalba marka dadka badanaa soomaalida waxa waaye macnaha xadiiskii ma dhegeysanayaan ama sheekh hebel ma dhihin weeyi xadiiskii iyagoon dhegeysan waxba dhegeysan iyo markiiba opinionkooda ama fikirkooda iska gudbin taasina waa qalad meeshan arrin weyn baan ku haynaa kolka intaana xadiiska idiin sheegin waxa weeye maaragtay arrintan sababta loo qariyo waa idiin sheegay caawana waan baran doonaa mar kale caawa isla iyaga ayaa noo sharxi doona waxay yihiin waxaa kaloo caawan hadduu ilaahay kuu roon yahay barnaamijkan aynu ku soo qaadan doonaa qorayaashii carabta ee noolaa 1000 sano ka hor ugu yaraan hadduu ilaahay kuu roon yahay ugu yaraan maaragtay adigu ugu yaraan 900 sano intaysan nimankii khasaarka iyo goog turkiskii dadkii caddaanka ahaa aynay qabsan khaliifada islaamka ay carabtii cabaasiyiintu haysteen dowladda islaamiya ama khulafada kuwii ka horreeyay khulafadii kale umawiyiinta qorayaashii carabta waxay ka yidhaahdeen waxaad marka hore ogaateen kadib markii khulafada islaamka lagala wareegay magaaladii andalus iyo dhulkii andalus ee la oran jiray ee hadda waddankan Spain la yidhaahdo iyo qayb ka mid ah Portugal hadduu ilaahay kuu roon yahay qarnigii maaragtay 15aad oo la sheegay inay taasina ahayd xiriir ay gaareen cusmaaniyiinta iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay Roman Catholic waa Catholic-inta Roma marka ayaa marka Roman Catholic ayaa waxay Ottomanka ku yiraahdeen haddaad noo ogolaatid inaanu carabtan ka cayrino qaaradda Yurub oo waqooyiga Afrika ku celino waa umawiyiintiya adiga idinkana Turkiga haddaad tihiin waxaan idiin ogolaanaynaa inaad qabsataan magaaladii Constantinople oo ahayd xaruntii Orthodoxiska waa taqaan soo ma Greek Ruushka bariga Yurubka saas oo kale kolka dhiil baa la galay soo ma aragtaan kolka dhiilkii la galay saas ahaa macnaha marka qoladii Catholic ahaa ama European masiixiintii way ka soo saareen qaybtii khulafada ee carabta ku hadhay keliya ee umawiyiinta ahayd umawiyiintana maaragtay dee waqtiga ka hor dunidan carabta iyo qaaradan Asia macnaha maaragtay waxaa iyaga ka tirtiray cabaasiyiintii laakiin qaybtii ku hadhay oo ahayd umawiyiinta ee Yurub joogtay waddankan Spain iyo Portugal la yidhaahdo ayaa laga soo saaray kadibna dhiilkii wuxuu noqday in boqortooyadii Byzantiumka ama Romanka la oran jiray ama Greek Empire waa la yiraahdaa ee fadhiday magaalada Constantinople in hadduu ilaahay rooyo in maaragtay 1453 saas oo kala in maaragtay iyagana ay Turkiga ama Cusmaaniyiintii qabsadaan magaaladii Constantinople hadda dhowna 919 ayaa loo bixiyey Istanbul oo magacii maaragtay laga bedelay kolka hadduu ilaahay rooyo marka intii aysan marka qoladii kiristaanku qabsan khulafadii Andalusia ee carab ku hadhay ogow khulafadii kale ee maaragtay Dimashq iyo Baghdad iyo dhulkaas dhan fadhiday Turkiga ayaa la wareegay khasaarka la wareegay waana kuwa xadiistii wax dhan qariyay kulli iyaga qariyay marka inteena Turkiinta iman carabtii jirtay ayaa hadduu ilaahay rooyaa macnaha waxay ahaayeen carabtii dhul mareenka ahayd adduunyada martay waxaa ka mid ahaa ibn Fadlan oon caawa baran doono Axmed ibn Fadlan iyo almaqdisi
iyo hadduu la ku roon yahay ibnu rusta saddexdan nin gaar ahaan labada ugu horey ibnu rusta iyo axmed ibnu fadlan waxay tageen dhulkii khasaarka ama yajuuj iyo majuujka ayay booqdeen waxay kala soo kulmeenna waan baran doonaa iyo waxay macnaha yidhaahdeen markii marka qarnigii hadduu la ku roon yahay maaragtay adigu markii ay masiixiintii qabsadeen andalusia waxa weeye kutubtii daarucilmiga taallay sida magaalada weyneed ee kartuuba la odhan jiro oo kale isbaaniyaarkii ama isbaanishkii way qabsadeen kadibna kutubtii carabiga ku qoreyd ee dhulmarinada iyo carabtu sameeyeen sida ibnu batuuta caana oo soomaali u taqaanaa laakiin ibnu batuuta waxaa ka weynaa axmed ibnu fadlan oon caaw baran doono wax alla waxay kutubay qoreen ayay isla markiiba latin u bedeleen iyo spanish kadib markii latin iyo spanish u bedeleen waxay sameeyeen qorayaal iyaga ayay soo saareen 100 sano ka yar waqti yar gudaheed waxaa dhacday maaragtay qarnigii 19aad bay ka qabsadeen andalusia moogtahay waxaa qabsaday isla markiiba waxaa dhacday waxay sameeyeen christopher columbus waxay sameeyeen vasco da gama iyo waxay sameeyeen magellan waa 3 nin oo maaragtay hadduu la ku roon yahay spanish ahaa aduu columbus macnaha talyaani ha noqon laakiin spain boqoradii spain ee isabella la odhan jiray ayuu dhulmareen u ahaa saddexdaa nin dhammaantood waa taariikhda muslimiinta laga qariyay saddexdaa ninba waxa waaye kutubta ay turjumeen ay ku meel mareen waa wixii carabta qortay kolka ninka carabka ee axmed ibn fadl la odhan jiray ayaa qarnigii 10aad oo ah 900 miilaadiga markay hadda ahayd ayaa waxa uu booqday dhulkii yajuuj majuuj buu booqday marka sheekadiisa insha allahu tacaala wax yar baan geli doonaa horta intaynaan gelin waxaan rabaa inaan tuso nin kale waxaan tusi doonaa rabbaaya macnaha culimada qolada yuhuudda oo ka sheekeynaya boqortooyada khazaariya sida yuhuud ku noqotay maaragtay waxa uu sheegi doonaa in saan adigu in badan idiin sheegay in hadduu la ku roon yahay nebi suleyman geeridiisa kadib calayhi salaam markay taariikhdu ahayd 700 ilaa 600 nebi ciise ka hor in qabiiladii reer bani israa'iil ee ilaahay subxana wataala dhulka ka qaxiyey inay yajuuj majuuj u galeen oo ay koonfurta ruushka dhulkan hadda ah ee caucaska la yidhaahdo iyo georgia korkeeda aduu dhulkii yajuuj majuuj xadiiska nebi ku sheegay sal ll inay dhulkaa joogaan saasoo kale dhulkaas inay tageen yuu noo sheegaya ogaadana waa aayad qur'aan oo ilaahay wuxuu yidhi subxana watacaala suurat alacraaf suuradda 7 quraanka dhammaadkii qisadii nebi muuse iyo fircoon wixii dhex maray allah subxaana watacaala khayray reer bani israa'iil isagoo ka hadlay wuxuu yidhi waqadacnaahum fi lardi umama alla wuxuu yidhi subxana watacaala waqadacnaahum waxaan ku turtoon waxaan u googoynay macnaha dhulka ayaa lagu firdhiyey saasoo kale dhulka ayaa lagu daadiyey kolka meel kasta adduunka way tageen adduunkii la yaqaana adduunkii berigaa la yaqaanay marka waxaan kaloo intus doonaa nin kale isagana hadduu ilaah ku roon yahay jaamacad professora oo qoray in qoladii khasaar loolan jiray aan idinka sheekeeyey hadda ah yuhuudda maanta israa'iil joogta ee la baxday magaca israa'iil muddo badan idinka sheekeeyey meeshii deganaayeen oo qoladii derbiga jebiyey iyagii goog turki wuxuu ninkana noo sheegayaa 100% inay yihiin yajuuj iyo majuuj soo ma aragtaan sidoo kale axmed ibnu fadlan markuu tegey warbixintuu ka soo diyaariyey oo boqorkii isaga khaliifkii baqdaad baa diray sababtuna waxay ahayd geeridii nebiga sal allahu alay wasalam 300 sano kadib baa la diray 320 meelaha waxaa la yidhi derbigii waa la jebiyey bal orod soo eeg ninkii waa uu tegey warbixintiisii waan arki doonaa oo kooban ingiriis bay ku qoran tahay waqti ma haynan soomaali ku turjumo soomaali badanna macnaha waxbarashada ma dayanayaan qaar baana maxaa naga galay waxaad ogaataa arrinta yajuuj iyo majuuj haddaad fahanto adduunyada wax ku dhibaya ayaa iska yar waayo khiyaamada ugu weyn muslimka lagu sameeyey waxa weeye waa laga qariyey khulafadii qaybtii carabta ahayd ee khulafada ahayd ee cabaasiyiinta ahayd ayaa ugu dambeeyey ku wax cilmi baaris ku sameeya boqortooyadii yajuuj iyo majuuj oo soo sheegay qabiiladoodii waxoodii markii qoladii turkiga ahayd goog turkiis oo markii goog turkiisna maaragtay uu hogaaminayay ninkii loola jiray banduulahooda ahaa saljuug markay qabsadeen waa ay tirtireen wax alla wixii ku saabsanaya yajuuj iyo majuuj waayo isaan casharadooda ka sheegay saljuug iyo aabihii isagaba iyo qabiiladooda waxay ahaayeen jenaraallo iyo saraakiil ka tirsan boqortooyadii khazaari ee jebisay derbiga kolka nin waqtigaana awowgooda saddexaad meelahaas ayaa derbiga jebiyey waqtigay soo muslimeen kolka way ogyiin sheekadooda xataa mid iyaga ka mid a markuu khaliif noqday kadib magaciisii hore ee khasaarka ayuu la baxay oo hadduu ilaah ku roonya la yidhaahdo astarakhan laakiin waa lagu kacay waxaa la yidhi naga daa kadib buu magacyadii carabta la baxay magac islaamiya magac muslina ma jiro magaca muslimku waa magacyadii carabtu rasuulka sal ll slam waqtigiisii joogtay ee diinta islaamka qaatay magacyadii la bixi jireen ayuu nebigu noo sunneeyey macnaha soo ma aragtaan kolka
diinta islaamku magacyay gooni u leedahay maysan wadan waxa weeye magacyadii waqtigaa jirtay ee carabtii la bixi jirtay ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo qurxiyey oo inoo wanaajiyey isagoo nebigu sallallahu alayhi wasallam naanisyo xunxunaa carabtu lahaayeen sida ina madax cuna iyo ina kurka gooyi iyo naanisyo xumaa dhan rasuulku ka saaray marka magacyadan sunnaha ayuu inoo rabay maxamed cali axmed cabdiraxmaan cismaan cumar saasoo kale ah waana magacyada sunniga waana maasha allahu magacyada maanta la isweydiiyo ummadda ugu badan magacyadii hore ee asxaabta la baxda waa soomaalida taasina waa hambaliyo waa ilaah mahadii kolka khiyaaray bal aynu hawsha bilowno waxyaalo badan oo hadduu la idiin roo yahay laynaga qariyey ayaan isla arkaynaa yaan idin tusaya hadduu ilaah yidhaahdo khiyaaray qoraalkani waa kugu horeeya oon doonaya hadduu ilaah yidhaahdo inaad aragtaan maaragtay brofesorka qoraalkan qoray wuxuu yidhi proof caddayn ashkenazi waa yahuudda yurub saan idin sheegay awla khasaar loolan jiray wuxuu yidhi proof waxaan idin caddaynayaa inay yihiin r gogan maygag waxaan idin caddaynayaa inay ashkenazi juu yihiin buu yidhi yahuudda ashkenaziga inay yihiin yajuuj majuuj yaan idin caddaynayaa wuxuu kale markaa kadib wuxuu yidhi gogan magog and the kingdom of khazaria soo ma aragtaan akhyaaray gogan magog yajuuj majuuj iyo boqortooyadii khazaria waxaan beenbeen maaha wax iska jambala maaha waa dadkani waa brofesorada iyo jaamacadaha waxaan ka hadlayaa akhyaaray waa academia waxa la dhaho waa waxbarasho heer jaamacadeeda soomaalida badankeedna waa ku dhib waayo sheekhna kamay maqal macalinka dugsiga kamay maqal iskoolada iska badaa warkooda anuu hoose dhexeey iyo dugsi sare muqdishoon uga baxay weligeen maana maqal ilaa aan waqooyiga Ameerika tago uma maqal soomaalida waqooyiga Ameerika tagtana haddii aysan dad wax akhriya ahayn wax barta ahayn haddii la ku rooyay waxaan warbixinta meeri karaan haddii dunida muslimka joogaan si kasta looga qariyo waayo waxaan idin sheegay carabta waxa jooga oo dhan xukuma carabta waa dadkii khazaarka ahaa oo muslimay oo tawxiidka qaatay waxaan kaloo idin sheegay macnaha ibliis wiil dhalay ama uu ahaa inuu muslimay kolka cid kasta muslimi karta oo hanuunka qaadata oo ilaahay nuur ku tuso yajuujku majuujkuna waa bilaadan waa insaan way muslimi karaan kolka ninkan wuxuu noo sheegay macnaha inay saa yihiin wuxuu yidhi macnaha 100 sano ka hor boqortooyadii saas oo kala macnaha xataa macnaha waxay doonayeen soo moogid dhowr jeer bay waxay rabeen inay wadanka Holland ka qabsadaan bilmatalan waad aragteen xidigtan la dhaho Star of David moogtiin Davidkaasi say sheegan Nabi Daawud ma alayhi salaam waa nin boqor oo khasaar ah kuwan yajuuj majuujka ahaa oo doonayeen Baytul Quds qabsado qarnigii 9aad kan hadda 20 miilaadiga inta badan xisaabtan subxaan miilaadi way waxaan ku dhaqanaa waa kaas hadda ayaa wuxuu dhacday inuu qabsado doonayo marka meeshan hadduu la ku rooyay waqooyiga Ciraaq markuu marayo dhulkan harda Kurdiska ayay muslimiintu qabteen isaga ciidankiisa waa baabiyeen isagina meesha lagu dilay marka xidigtan isaga wadan jiray xidigtanna dadkii kazaag ama khasaarka la oran jiray ayaa hadduu ilaahay idin rooyay akhyaar isticmaali jiray fiiri maapkan wadanka Kazakhstan way meeshan aad aragtaan akhyaaray xidigtana dhulka ay ku samaysan tahay waana dhulkii ay boqortooyadaas degi jirtay kolka ninkan wuxuu noo sheegay maaragtay in yajuuj majuuj buu yiri 100% ay yihiin buu yiri boqortooyada khazaariya ashkenazi yurubiyaanka yahuudan hadda maan Israa'iil joogta 100% buu yiri waa hadduu ilaahay ku rooyay wuxuu yiri waa macnaha waa yajuuj majuuj okay ninkan buugiisa Mr Gibbon baa la dhahaa ninkan buugiisa meel kasta waan ka raadiyay waa laga dhaartay in free copy aan helo marka library US Congress buu yaala marka nin aqoon-yahan oo taariikhda Yurubiyaanka waxa baara ayaan hadda ka hor la xiriiray adigu dhowr sano ka hor waxaan ku yiri copy-ga waan waayay buugga meeli karaa wuxuu yiri buugga aniga 15 page baan ka haystaa yaan ka akhriyay yiri gabigiisa macnaha malaha ka haystaa marka waxay maxaa 15 page ku qoraa arrinta googana maxaad ka ogtahay waa nin muslim isagoo alla naxariistay hadda uu dhintay David Bidkag Musa ayaa loo jiray David Bidkag Musa uu soo muslimay British muslim buu ahaa waana ninkii anigu casharadeedii bilowga ugu horreeyay markaan baranayay 10 sano ka hor aan ka maqlay inay awoowadeed yihiin yajuuj majuuj fiidiyoga ku jira suuratul kahf aan sharaxayo waad aragteen in dhamaadka aan tusay fiidiyo muujinaya in Ingiriisku dadkan Britishka la dhaho hadda British iyagu lama dhaho Anglo-Saxonka laakiin inagu Englishka ama Ingiriiska aanu naqaano waxay u dabaaldegi jireen 2 boqor oo loo kala oran jiray Gog and Magog yajuuj majuuj hadda dhow la joojiyay fiidiyoga waan tusay fiidiyoga niyo ma aqaan Soomaalida qof ka hadlaya ma arag haddaad reer London tahay London waan ogahay channelkayga YouTube-ka UK aad baa looga daawadaa kolka haddaad joogto London waxaad ogaataa macnaha nimankan British hadda Britishka la dhaho awal hore Anglo-Saxons la oran jiray iyo Judes iyagana qabiilkii koonfurta degay meeshan Kent la dhaho ee dhinaca English Channel-ka dhinaca
macnaha English Journalka Faransiiska kala qaybay Ingiriiska dadka deganaabay ahaan jireen oo isla saddexda qabiil la socday waa Yajuuj Maajuuj boqolkiiba boqol kolka ninkan buuggiis waa la qariyay marka ninkii waxaan ku dhahay dhowr iyo tobanka page new maxaa ka mid ah mise dhowr iyo labaatan page bay saas oo kale hadii say taaba wuxuu ii sheegay wuxuu yiri boqor ka mid ah waxa ku qoran waraysi waxaa jiray boqor ka mid ah boqoradii khasaarka ayaa nin Yahuudi Spain fadhiday oo Andalusiya muslimiinta khulafadii la joogtay waxaad ogaataa khulafada marka la haligay cadaankii ay hadduu ilaahay kuu roon yahay ay qabsadeen qarnigii 15aad bartimihiisii gebigooda dhan ba carabti meesha joogtay way isbedeshay dhaqan Yahuud bay yeesheen sida maanta carabtu tahay kharaab bay noqdeen wasaaradii arrimaha dibadda iyo maalkoodii Yahuud baa la wareegtay ribadii baana gashay mar alla markay dowlad islaama ribo gashana dowladdaas dhulkay gashaa marka nin ka mid ah maaragtay siyaasiyiinta Yahuud ee meesha joogay ayaa markuu maqlay boqortooyo la yidhahdo Khazaari ayaa meesha joogta waa qarnigii sideedaad adigu markay Yahuud noqdeen 60 sano kadib ilaan ganacsiga adduunka hore ka dhaxeeyay loo sheegay marka warqad buu u qoray wuxuu yiri niyo maxaa tiiri idinku warqadii way ka jawaabeen internetka ku jirtaa meelo fara badan boqorkii Khazaar baa ka soo wareegay yaa ka soo jawaabay wuxuu yiri anagu waxaan nahay dad Turkiya oo diinta Yahuuda qaatay isla markaana qabiilo badan oo Yahuud noo yimid saasaan nahay buu yiri macnaha suu sheegay macnaha wuxuu leeyahay macnaha Ilaahay baa nagu deeqay macnaha luqadiisa ma ku hadlaya subxaanallahi subhanahu saas weeye kitaabka loo keenana waxa ka tawreed maaya waa Talmud weeye Talmudkuna waa buug xun marka ninkaas wuxuu sheegay khayr ninkaas wuxuu sheegay in awiyadooda hore ay ahaayeen dadkii lagu cambaareyn jiray koogan meegaag Yajuuj Maajuuj wuxuu yiri anagu Yajuuj Maajuuj baan nahay waa saas weeye marka waxyaabaha buugga loo qariyay waxa weeye convention ama waxa qiranaya boqorkoodii inay iyagu akhyaaray maaragtay hadduu Ilaahay idin rooyay ay yihiin Yajuuj Maajuuj caadiya iyagii baa qiranaya marka buuggaas waxyaabahaas loo qariyay marka waa kan baadariga aan dhahe rabbayga ama Yahuudda culimada oo ka sheekeynaya khasaarku inay Yahuud ahaayeen asalkoodii hore waxayna deganaayeen meeshan sawirkan dhowr jeer hore aan tusay haddaad xusataan mar kale aan tuso hadduu Ilaahay yiraahdo meeshuu ninkani ka hadlaya maaragtay bal fiirsada macnaha dhulku sharaxaya waxa weeye akhyaaray waa dhulkan soo maaragtaan halkan weeye halka sawirka yacni idiin muuqda waa meeshaas marka halkaas sharaxaya wuxuu yiri halkaasay deganaayeen webigana waa waxa weeye webigana waa maaragtay waa Danube river baan jeclaa inuu yahay badda Black Sea uu ku soo dara halkaas adiga laka hadda halkani waa dhan waa koonfurta Ruushka iyo dhulkan hadda Chechnya la yiraahdo tani waa Caspian Sea halkana waa Black Sea maaragtay halkani waa koonfurta Ruushka halkana waxa weeye Azerbaijan halkana waa Iran halkani waa Georgia halkani waa Armenia halkani waa Turkiga beriga Byzantine bay ahayd marka wuxuu ka sheekeynaya boqortooyada halka deganaa waasaan anigu idin sheegay khayr isaan idin sheegayna casharkan iyo waxyaalahan idin sheegay waa waxbarasho heer jaamacadeeda waxyaalo si dhib yar loo heli karo maaha waxba jaamacadaha xataa de qof kasta ma heli karo laakiin qofkii akademiya ee raadsada waa uu heli karaa kolka wuxuu ka sheekeynaya inay boqortooyadaas jiri jirtay wuxuu yiri khasaarka waxay ahaayeen markii ugu horreysay buu yiri waxa loo aqoon jiray Agatirsi baa loo oran jiray fi Soomaaliland Agatirsi baa loo oran jiray Agatirsi spelling kale uu kala jiraa meelo kalena waxay qoraan akhtaziri baa loo oran jiray waxaa la yiri dadkii waxay ahaayeen waqooyiga Caucasus Afghanistan waddanka hadda iyo Turkmenistan iyo Uzbekistan dadkii deg jiray bay ahaayeen say tahayba boqolkiiba boqol dad Yajuuj Maajuuj bay ahaayeen laakiin macnaha iyagu hadee macnaha kuma dhahayaan Yajuuj Maajuuj bay ahaayeen marka bal waxaan fiirinaa khiyaaray in hadduu Ilaahay idin rooyay ay maaragtay wax Yajuuj Maajuuj ay sheegtaan marka iyagu way qariyaan macnaha inay sheegtaan Yajuuj Maajuuj hadduu Ilaahay idin rooyay laakiin wuxuu ka sheekeynaya macnaha waa kan wuxuu yiri qarnigii maaragtay toddobaad ayay Mount Caucasus ayay maaragtay hadduu Ilaahay ku dhulkaas deganaayeen Black Sea halkaas waqooyiga waxay deganaayeen Persia gaar ahaan boqortooyadii ugu dambeysay muslimka soo afjaray la oran jiray Sasanian Persia ama Farisigii ugu dambeeyay marka dad saasay ahaayeen waasaan idin sheegay macnaha halkaasay deganaayeen ninkaasana waa abtirinaya wuxuuna ka sheekeynayaa maaragtay boqortooyadaas inay ahayd boqortooyo Yahuuda khiyaari waa ka khasaarkiisu ka hadlaya hadduu Ilaahay ku rooya wuxuu sheegay dadka khasaarka inay ahayn dadka halkaas deganaa macnaha weliba isagu ku dardaraya wuxuu leeyahay in badan oo Israa'iiliya ka buuxda laakiin Israa'iil yar way gashay laakiin dadka badankoodu waa dadkii Europeanka khiyaar ee la oran jiray Yajuuj Maajuuj boqolkiiba boqol waana dad saasa marka hadda waxaan gelaynaa Axmed ibn Fadl maan gelaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo
marka waxaa la yidhi yuwa axmed ibnu fadlan waxaa la yidhi axmed ibnu fadlan wuxuu ahaa safraa ama traveler caraba isla markaana wuxuu ahaa siyaasi ka soo jeeda magaalada baqdaad oo markaa ka tirsanayd boqortooyadii ama khaliifadii cabaasayd la oran jiray sanadkii 912 waa taariikhdan hadda ah hadduu la kuuriyay 2012 niyo mucjisada waa 1100 sano ka hor buuxda ninkaas waxaa la yidhi waxaa loo diray mission ama hawl ah waxaana loo diray oo la yidhi mission iyo hawl ah inuu soo ogaado boqorkii Volga Bulgaris okay Volga Bulgaris Volga waa webi koonfurta Ruushka mara meeshan hadda Chechnya korkeeda hadduu la ku roon yahay iyo maaragtay saas oo kala Volguhu wuxuu ku dhamaadaa badda Caspian Sea buu ku dhamaadaa marka beriga dad waxaa degi jiray la yiraahdo Bulgaris baa la oran jiray Volga Bulgaris baa la oran jiray boqortooyinay lahaayeen waana qabiilka ugu xiga DNA-da walaalaha laha khasaar dadka hadda la oran jiray Volga Bulgaris loo yaqoon jiray ee webiga Volga deganaa hadda waxa weeye waa dadka dega waddanka la yiraahdo Bulgaria iyagoo habiyana ku sheegay inay Turki yihiin waana qabiil kamid ah qabiilada ugu waaweynaa ee Yajuuj iyo Majuuj marka dhulkaas loo diray waxaa la yidhi Volga Bulgaris oo hadda Volga oo hadda baa la yidhi raashiyada cusub saaniishiga koonfurta Ruushka webi ku yaala ayaa waxaa loo diray baa la yidhi inuu soo xaqiijiyo oo ka keeno fariintaas oo ah fariin macnaha taariikhi inuu ka keeno iyo qowmiyadaha maadaama ethnographic isagu aad u yaqaanay macnaha documenti keen baa la yidhi macnaha cadeymaha ummadaha iyo si u nool yihiin iyo waxaas iyo ninkani specialist ku ahaa ama aqoon gaar u lahaa marka halkaas loo diray kadibna waxaa la keenay maaragtay markuu meesha tegey waa sii dhaafay waxa uu kale uu sii tegey dadkii Viking la oran jiray Viking Rus Soomaaliya khiyaari 100 jeer soo idma dhihin dadka Ruushka asalkooda Viking bay ahaayeen Ruushka hadda Slaviska ma aha kuwa tinta madow ma aha waa kuwa cadaanka ee blue eyes ka waxa weeye Viking bay ahaan jireen Kievan Rus baa la oran jiray Kievan laba nin bay ahaayeen laba qabiil bay ahaayeen Rus iyo Kiev oo magaalada hadda caasimadda Ukraine Soomaa iyo Ruuska laba dad bay ahayn Viking bay ahaayeen iyaga dhulka qabsaday khasaarka iyo Volga Bulgariska dadkan hadda Bulgaria ayay la dagaalami jireen ilaa ay labadaaba jabiyeen iyagana baabiyay marka dhulkaas loo diray waxaana la yidhi arrinta loo dirayna waxay saan idin sheegay khaliifkii baa wuxuu ku riyooday darbigii baa riyo lagu tusay baa la yidhi sheekada buu kalan ka akhriyay darbigii baa riyo lagu tusay marka ninkan buu diray uu yiri soogow markuu tegey hadduu ilaahay ku uu soo arkay wuxuu yidhi ibnu fadlan hawshiisu waxay ahayd inuu si toosa u soo arko oo u soo ogaado arrintii laga sheegi jiray Yajuuj iyo Majuuj inay yihiin macnaha king of Bulgariska bal soo ogo baa la yidhi iyo khasaarka waxay ahaayeen isaas oo kale iyo Bulgarka qayb ka mid ah ayaa markaa iyagu muslimay soo ma aragtaan way muslimeen dadkan hadda Bulgaria muslimiinta koonfurta Bulgarka ayay degaan Bulgaria ayay degaan xadka Turkiga Bulgaria Turkigana way isku dhow yihiin Bulgariyana waa waqooyiga wadanka ugu soo xiga Turkiga xagga ka xigo marka aad Bosphorus dhaafto meesha Black Sea iyo Mediterranean ku iskaga daraan oo magaalada Istanbul dhinaceedu waqooyi waxay markaad socoto xagga bidixdana waa Greega korna waxay soo gelaysaa Bulgaria marka dadkaasi berigaas ay muslimiin fiirsada waana Yajuuj iyo Majuuj caadi qabiiladii ahaa 100% marka waa uu tegey wixii dhan buu soo macnaha uu soo arkay sayihiin buu soo arkay khasaariga marka beriga waxay dagaal kula jireen boqortooyada khasaariga oo iyagu yuhuud ahayd iyo kuwii kale Kievan Rus oo Viking ahaa oo hadda Ruushka aynu naqaano Putin iyo qoladiisa oo iyagu markaa beegan ahaa cawaan bay ahaayeen weli diinta masiixiyad umaysan gaarin marka ninkii kale carabka ahaa qoraaga kale akhyaar ee carabka ahaa maaragtay macnaha ayaa ka sheegay marka arrintii uu derbigan wadnaayay derbigaas oo dad badan rumaysnaayeen inuu Alexander dhisay boqorkii Macedonia Alexander laakiin Alexander ma aha wuxuuna ninkaas soo sheegay wuxuu yiri waxa kaloo soo fiirsaa Bulgaris markaa tagtid iyo dadka hadda muslimay ee Yajuuj iyo Majuuj ahaan jiray soo sheeg baa la yiri regionkaas oo ay ku noolaan jireen dadka la yiraahdo Yajuuj iyo Majuuj bal wixii taariikhdu laga sheegay ee laga rumaysnaa iyo hadduu la guuron yahay ummadaha fara badan ee baadiyaha ee dadka istabe tribes ahaa ama qabiilada fara badan ee ku nool dhulka bannaan ee istabe la yiraahdo macnaha dhulkan koonfurta Siberia ilaa maaragtay Kuuriya laga tagay dhul bannaan buu ahaa fardahi waxa marka waxaasna soo waa la yiri waxa uu soo arkay ninkani qabiilkii Turkiga la oran jiray guus Turkiga oo la sheegay kuwa Cusmaaniyiinta keenay iyo Seljuugiyiin yihiin oo iyaguna markaa maysan muslimiin laakiin waxa dhan buu soo arkay carab buu hayaa sida ay yahuud Yajuuj iyo Majuuj diinta yahuud ugu geeyeen ee carabtuna
diinta islaamka u geeyeen qabiiladii yajuuj iyo maajuuj soo ma aragtaan marka uguus baa muslimi doona saasoo kale hadduu ilaahay ku roon yahay marka derbiga aliskandar bay yidhahdeen laakiin ma aha dee way ku khaldami jireen waxaa kaloo la yidhi soo fiiri baa la yidhi dulqarnayn meeshii uu derbiga ka dhisay fiiri soo ma aragtaan fiiri dadkii hore carabtaa soo ma aragtaan macnaha inay yaqaanaan fiiri waa suurat alkaaf baa lagu sheegay baa la yidhi iyo dulqarnayn meeshuu ka sameeyey derbigii soo arag baa la yidhi marka ninba gadaal maruu ka yimid dad buu la kulmay waxaana loo sheegay derbiga la dhisay ee birta iyo xadii maarta laga sameeyey isfiiri soomaaliya aayadda qur-aanka ah laga sameeyey ee lagu xiray ee lama lagu awday ama lagu awday yajuuj maajuuj until end time la yidhi waxay sheegeen waxay bulgarisku u sheegeen oo markaas soo muslimay in derbigaasi uu dhow yahay meesha iyagu joogeen isla markaana in derbigiina inayna iyagu og yihiin cidda jebisay derbigaas yaa derbigaa jebiyey kuwii ka hooseeyey iyagu waxay joogeen meesha volga la yidhaahdo macnaha xadka georgia ruushka way ka sarraysaa soo ma aragtaan waa badda caspian seaga dhulkan u dhexeeya weeye waa meeshan hadda astrakhan la yidhaahdo iyo hadduu la ku roon yahay don river iyo koonfurta ruushka weeyaan meeshan maaragtay soshi la yidhahdo ruushka iyo halka laakiin khazaarka kuwa hoos joogay oo xadka georgia iyo joogay ayaa kuwan volgarka waxay leeyihiin meeshii derbigii u dulqarnayn sameeyey halkaas way muslimeen iyagu wayna og yihiin waana dadkii dhulka lahaa ee madaniga ahaa waxay yidhahdeen waa la jebiyey derbigii saas weeye kolka axmedan ibnu fadlan hadduu ilaah yidhaahdo weli skeptic buu ka ahaa ama shaki buu ka qabay sida dad badan shaki uga qabaan derbigii ilaa la jebiyo ilaa hadduu ilaah idin rooye akhyaaray uu taga isagu meeshii derbiga laga sameeyey waa sheeko dheer macnaha laakiin waxaan yeelaynaa samarais baan ku samaynayaa marka hadalkooda wuu ka shakisanaa in derbiga la jebiyey kadibna waxaa dhacday isaga naftigiisaa la kaxeeyey meeshii baa la keenay firi macnaha waa dad bilaadan innagoo kalaa soo moog kuwooda xun ee gaalada weeye dadkan waxaanan la yaabay kuwooda xun ee gaalada marmar siday u joogaan unbay balaayo ku kici bilmetan tataarku adduunyada gubay aad ogtiin baqdaad iyo eriyadaas maalin keliya 3 milyan oo muslimiina ku dilay hal mar say u joogaan bay balaayo ku kici kadibna ina yajuuj wa maajuuj aayadda qur-aanka ahayd ayay la soo bixi ina yajuuj wa maajuuj mufsiduuna fil ardi dhulka fasaadinayaan kolka dad kuwani markaas kuwii hore ugu tegey oo bulgarisku u tegey uu ka soo baxay waxay u sheegeen derbiga la jebiyey aynay yaqaanaan dadka jebiyey waana la soo kaxeeyey meeshii derbigaa la keenay derbigan waxaa deganaa dadkan khasaarka la yidhahday goog turks iyo qabiil kaloo caddaan ahaa iyo indheer isku jira oo loodhan jiray alaniskana waxaa idiin sheegay meesha derbiga korkeeda magaaladii deganaayeen waxaa loodhan jiray brasilis baa loodhan jiray kadibna alanisku markii khulafadii muslimka ee spain la jebiyey andalusia la jebiyey way qaxeen halkaasay tageen kuwoodii kalena way ku darsameen kadibna hadduu la kuru qarnigii 15aad dhammaadkeedii markii boqortooyadii spain iyo portugal qaaradda america heleen oo boobkii markaa jiray uu qaaradii america u kala qaybiyey labadii superpower markaa oo Spain iyo Portugiiska iyo Isbaanishka ahaa waxaa dhacday qaybtii Isbaanishku way kala gogoosteen laakiin qaybtii Portugiisku hal wadan bay noqdeen waa wadanka Brazil la yiraahdo isla markaana magacii hore magaaladooda Yajuuj Maajuuj ahayd ee Deir el-Bas agteeda ku taalay ayaa ay la baxeen magaaladoodii macnaha dalka Brazil waxay ula baxeen magacoodii hore Yajuuj Maajuuj markay ahaayeen Alanis baa la oran jiray halkaas ay la baxeen soo maaragtay marka Yajuuj Maajuuj waxba lumiyaan marka ninkii Axmed ibn Fadl waa la kaxeeyey meeshii derbigaa la geeyey meeshaasina waa meeshaan sawirada idin tuso haddaan mar kale idin tuso hadduu ilaah yidhaahdo meeshaa la geeyey axmed ibnu fadlan hadduu ilaahay yidhaahdo akhyaaray waa meeshii derbiga laga sameeyey waana halkan baa la keenay meesha aragtaan baa la keenay buurahan baa la keenay waktiga la keenaya waa 1,100 sano yaa laga joogaa hadda berigaa haddee fiiri hadda wuu dhaqmay waa 1,100 sano soo waqtiga la jebiyey waqtiga nebiga niyo 1,500 sano dhiman baa la jebiyey laakiin wuxuu soo arkay oo indhiisku soo arkay isagii nin kale oo isagana ka soo warramay waxay soo arkeen maartii jajabtay dhismihii meeshii laga sameeyey dhagaxyadan waa jajaban yihiin dhulkani waa disturbed land waa dhul macnaha la jajabiyey soo ma aragtaan buurta halkan fiiri fallaadha anaa ku fiiqaya soo ma aragtaan meeshan waa la jebiyey waxaan dabiici maaniyo waa meelihii dabka lagu shubana dhulka la gubo waxa weeye maari iyo dhagax ma yeesho fiiri dhulka kale geedaa ka baxa laakiin kamaad aragtaa waa dhul jaban marka isagu halkan uu tegey hadduu ilaahay idin rooya akhyaaray halkan markuu tegeyna macnaha yacni maaragtay meeshuu tegey
haddaan intuso macnaha halka uu tegey waxa weeye sorry akhyaaray meeshuu axmed fadlan la geeyey oo uu soo arkay maaragtay waatan waa kan macnaha saad aragtaa halkan buurtan waa la jejebiyey tan waad aragtaa fallaadhan intu kusaya kanna waa disturbedland waa la jebiyey waxaan oo dhanna waa kan waa la jebiyey macnaha waa kan webiga dhexda mara webigan magaciisa tareeg la yidhaha afkan tareegu waa dadkii hanis la odhan jiray ama waddankan hadda hungary la yidhaha luqaday ku hadli jireen luqadooduna waa turki indo european ma ah waa turkic language dhowr waddano waxaa jira europeana sida hungary iyo finland oo luqadooda uma dhow anglo saxonka iyo kuwa germaniga ma aha slavskana ma aha waa dadkan marka halkan ay tegeen waxaa kaloo mucjiso leh saad ogtahay dadkan hadda turkiga ee adduunyada xukuma ee muslimiinta xukuma kulli waxaan masaajid dhisaya o dhan waxaan o dhan kulli wada turki alright ma ka sheekeynaya looma ogola sheekh soomaali waxaan ka sheekeeyo anigu wadaad iska suufiyo maaragtay ama ku kaloo meelaha internetka qaylqaylisyada kale ma aanay cilmiga lagama sheekeyn karo waayo nimankan iyagaa muslimiin ahaa waana taariikhdoodii mana doonayaan taariikhdoodii madoobeyd ay ku jiri jireen in banaanka la keeno waxaase yaab leh carabtii hore ee nooleyd 1,000 sano ka hor ilaa waqtiga rasuulka sal ly slm geeridiisii ilaa 1,000 sano ka hor aduu 400 oo sano ilaa idigu 500 oo sano ku dhowaad carabtii noola dhammaantood waa ogaayeen in meeshani tahay meeshii akhyaarii uu dulqarnayn ka sameeyey derbiga ka dhisay waana deer ilbaas 100% waa ka hadda idin sheegay axmed bin fadlan in boqorkii ama khaliifkii baqdaad soo diray oo liyo waana khaliifkaasina waa khaliifkii ugu dambeeyey ee cabaasiyiinta markuu diray kadib axmed fadlan soo noqday muddeeruu joogay wiilkiisii baa ka qaaday wiilkiisii nimankii uguuskii uu diinta islaamka u geeyey axmed bin fadlan iyo 5,000 oo wuxuu watay safar iyo wax kasta dahab iyo hadiyade iyo lacag iyo wax kasta waday sheeko dheer bay ahayd haddaan waqti helo maalin baan ka sheekayn doonaa buugga waxay ku jirtaa qofka luqadda ingiriiska yaqaana buug la yidhaahdo Arthur Koestler qoraaga 13 Tribes oo ah buuggan hortiina yaala internetka ka raadiya waxaan ka hadlay halkaas ku jira iyadoo faahfaahsan qofka ingiriiska yaqaano soomaalina haddii waxba waqti uma hayaan ku turjumo kolka boqorka kadib waa la inqilaabay wiilkiisii oo iska maaragtay ciyaal macnamal iska noqday oo kale wiilkiisi waa la dilay kadibna nimankii turkiga ahaa baa la wareegay maalinkaas sidii turkiga khulafadii muslimka iyo hogaankii ula wareegeen ilaa maantana iyagaa haya soo xagarteen ma khayray kolka dhulka meesha laga sameeyey halkan ay ahayd 100% waana meesha keliya ee macquula adduunyada ka jirta marka ninka xafidlana wuu tegey derbiga hadda intusay buu soo arkay oo jajaban oo hadduu ilaahay idin rooya khayre maaragtay la jijibiyey gebigiisa dhanba yacni maaragtay maartay dhulka taallo birihii dhulka la arko waxaa dhan uu soo arkay laakiin kadib waxbarashadiisii iyo wixiisii iyo taariikhdiisii iyo safarkiisii wixii dhan waa la qariyey marka weligiid miyaad maqasheen intiina gaar ahaan wax akhrida waxna qorta ibnu fadlan miyaad maqasheen u malayn maayo soomaali anigu weligeyga soomaali kama maqal carabtana ma ka maqlaysid waayo ninkani waa ninkii soo arkay isha soo saaray derbigii yajuuj majuuj ay jebiyeen waqtiga ay jebiyeenna adigu 200 iyo googo sano kadib uu tegey meeshii 250 sanona wax weyn maaha haddaad taariikhda taqaano soo moog haddaad macnaha ogtahay si waxaan isku bedelo wax ma aha kolka ninkan taariikhdiisa waa la qariyey sidoo kale nin kale ibnu rusta la oran jiray ayaa isaguna Kevin Rus booqday wuxuu ku sheegay inay yihiin dadka adduunyadu qurqurxoon laakiin wuxuu waa dad wasakha oo uraya beriga beegan bay ahayn dee macnaha ugaadhsi waxaanay ku nool yihiin wuxuu yidhi dad ahaan marka la yidhaahdo yidhi waa dad timo gudgududan waa dad dhaadheer waa dad saasoo kale yidhi indhahooda buluu yahay waa naage ninba waa dad dhisan buu yidhi xoog leh laakiin wuxuu yidhi waa dadan dhaqan lahayn buu yidhi waa cawaana bilmetel wuxuu yidhi ninku markuu dhinto naagtiisa haddii aysan ilmo u dhalin oo aysan ilmo haysan iyadana waa inta la dilay habeenka oo lagu khamrada aad u cabaan buu yidhi ayaa wuxuu yidhi lala aasaa waa dadkii Kevin Rus la oran jiray Rus waa dadkii Viking ahaa ee Russia qabsaday waana dadka cadcad ogaada Ruushka iyo NATO isdilayaan iyo hal wadan Scandinavia ka soo guureen xaqiiqiyan ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Sweden oo waxa YouTube ku jira ka sheekeynaya Ruusku inay asirkooda Swedish ahayn Google gareeya intiina luqadda Ingiriiska taqaan waad yaabi doontaan information ka hadlay waxyaalaha saan idin sheegana macnaha calashaan waxyaalahan ka hadlaya waxyaabo khiyaari waxa weeye heer jaamacadeed oo jaamacadaha lagu dhigo laakiin nasiib wanaag waxaan doonayaa in dadkeena Soomaaliyeed ay bartaan marka ninka kale al-Maqdis loo jiray isaguna waa uu booqday waa uu soo arkay moogtay al-Maqdiskaas waxaa la yidhi ibnu batuuta oo taqaanaan ka hor qarnigii 14aad bilowgiisii booqday Soomaaliya saylac iyo berberi muqdisho booqday waxaa la yidhi al-Maqdiska ka horreeyay isagu Suuriyaan buu ahaa dadkii Syriac baa loo jiray Suuriyaan caraba iyo ahaan jiray waxaa la yidhi isaguna maaragtay bariga Afrika
الشرق الإفريقي waxaan hadda dhulka hadda la dhaho ama qaran الإفريقيا sida buugaagta ku qoran geeska Afrika ayaa uu booqday oo uu tegey waa taariikha laynaga qariyay waxyaalahan oo dhan saas oo kale ah marka nimanka carabta qorayaasha waa nimanka Europeanka saan idin sheegay ee qoraaga ee hadda meel kasta ku qoran Christopher Columbus lagu leeyahay waa dadkii macallimiinta u ahaniyo waa dadkii ay buugaagtoodii kutubtoodii xadeen ee ay translation ku sameeyeen ama loo turjumay ee adduunyada ku meel mareen marka ninka Axmed ibn Fadlan la oran jiray boqortooydii khasaari uu tegey hadduu ku ilaahidin rooya Volga Turks Volga maaragtay Bulgaris buu tegey oo dadkan hadda Bulgaria degana wuxuu tegey Alanis buu tegey wuxuu tegey Ugus buu tegey hadduu ilaahay ku rooyay dhammaan qabiilada Turkiga oo dhan buu maray waxaas oo dhan buu soo arkay isagoo baadhiyey dhammaantoodna waa ninka sheegay buugga la yidhahdo qabiilka 13aad ayay ku jirtaa sheekadaas uu yiri dadkan khasaarka la yidhaahdo waxaa laygu yiri buu yiri iyaguna ay ku sheegeen dadka qorayaashooda inay asalkooda yihiin boqortooyada khasaariya waxaa lagu sheegay inay yihiin host of ama dadkii martigeliyey yaajuuj iyo maajuuj wuxuu kaloo soo ogaaday in khasaarka qayb ka mida ay markaa naftigeeda muslin ahaayeen xaqiiqana magaaladii caasimadda u ahayd waxaa la odhan jiray Italy soo mataqaanaan waa meeshu ka yimid no nimankani waxay mucjiso ku yihiin meeshii qabsan iyagaa boqor noqda Itaaliya soo ma ogid magaca Ital macnaha ma aha Latin ma aha iyo Roomaankii hore waxay meesha deganaa Talyaaniga waxaan ma ahaniyo caasimadii khasaariya la odhan jiray yaa la odhan jiray Ital baa la odhan jiray waa khasaariyan capital bay ahaan jirtay caasimadoodii wuxuu yidhi dad muslina ku nool buu yidhi webiga dhinaca kale ka degan yihiin waxaa kaloo joogu yidhi ruuska dadka cadcad ee Vikingka ah oo iyaguna dhinaca ka degan oo cawaana wuxuu kaloo yidhi boqortooyadu wuxuu yidhi waa boqortooyo yuhuuda boqorku waa boqor yuhuuda maalinka sabtigana meel walba ay xiran tahay dadkana iyaga ayaa ku yidhi annagu asalkanagii qabiiladii fiiri iyagu umay aqoon macnaha sida inagu yaajuuj maajuuj markaan acuudu billahi yaajuuj maajuuj madaxa la qabsan ma aha iyaga dhalash ahaan bay u haysteen marka ninkani sir buu ururinayay darbigii in la jebiyey wixii o dhan uu soo helay wixii o dhan markuu soo helay boqorkii u yimid waxaa la sheegay boqorkii maaragtay inuu madaxa haysta bilo dhan waayo waqtigaa 922 markuu booqanayo 300 ee ka soo horeysay ilaa geeridii nebiga sallallahu alayhi wasallam waxaad ogaataan 300 ee sano muslimku khasaarka ay la dagaalamayeen inay derbigan maraan oo meesha jebiyaan si diinta islaamka looga geeyo bariga Yurub looga soo geliyo sidii ay umaawiintuba koonfurta Spain iyo dhulkii galbeedka Yurub u qabsadeen koonfur galbeed Yurub ay u qabsadeen khulafadii Cabbaasiyiintuna doonayeen iyaguna markooda inay bariga Yurub ilaa iyo Cyprus ilaa Scandinavia in diinta islaamka la geeyo laakiin khasaarka oo qabiilkan hadda ah dadka ugu badan yuhuudda Israa'iil waa khasaariye ayaa hortaagnaa muslimka ugu yaraan 300 oo sano ilaa 500 oo sano ay hortaagnaayeen iyagana waxaa jebiyey qarnigii 12aad Tataarkii iyo Genghis-Khaankii watay wiilkii Genghis-Khaan uu dhalay loolan jiray Ogden ayaa isaga jebiyey oo hadduu la ku rooyahay meesha ku weeraray marka qorayaashii carabtu waxay noo xaqiijiyeen oo ay noo sheegeen akhyaaray in hadduu ilaahay idin rooyahay 100% ay boqortooyada khasaariya ay ahayd yaajuuj iyo maajuuj ka soo jeedaan khasaarkuna waa kuwan hadda Israa'iil jooga soo ma aragtaan soo isma keeniyo marka xadiiska nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam haddana marka lagu noqdo laa ilaaha illa allah weylul carab min sharri alqadar sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay ma ilaah kale ma jiro xaq lagu caabudo weylul carab halaag baa u sugnaaday min sharrin qad iqtaraba sharta soo dhawaatay darteed kadib nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alyawma waa maalinka waa sanadkii 7 ee hijriyada oo ku beegnay taariikhdan miilaadiga 629 nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam isagoo cimrada gudanaya wuxuu yiri maanta darbigii dulqarnayn sameeyey gaar ahaan ereygii subxaan nabigu uu dulqarnayn isticmaalay rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam isticmaalay wuxuu yiri radbankii maanta intaas laga dalooliyey markaasaa Zaynab tuuladin rooyay binti Jahsh oo ag joogtay oo muuminiin ahayd yaa waxay tiri yaa rasuulullah fiiri markiiba way faantiyadu weela lil carab halaag baa u sugnaaday waxay tiri rasuulka Allah miyaan la halaagi wa fiina saalixuun iyagoo annaga nagu jiraan dad wanaagsan nabigu wuxuu yiri qaala nacam waa la halaagi marka ay badato maantana xumaantii baa badan kolka haddaan xadiiska waxay filaanqaynaa khayr intaan barnaamij ka bixin rasuulka sallallahu alayhi wasallam ma dhihin weylu lil muslimkii halaag baa u sugnaaday wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam weylu lil carab halaag baa u sugnaaday halkaa waxaa garan karnaa qabiiladii yaajuuj iyo maajuujka oo markaa turkiga iyo cadaanka isku jiray ahaa ee nabigu yiri darbiga intaas ka dalooliyeen inay carabta cadowgood u qabaan غير العادية maantana yaa dhamaanaya
soo carab ma dhamaanayso soomaalida ogaada hadda ama diida ama si kale laakiin lug baan ku jirna soo moogid bentiganku inay 2011 markii saraha dhaadheeraa iyaguma soo ritay ay muslim ku eedeeyeen kadib in la yidhi 7 waddan baa dhulka la dhigaya oo la duminaya 7 waddan soomaaliya in qayb ka mid ah tahay soo moogid maxaa kenya etoobiya niyo loo oran waayay tanzania way soomaalida soo moogid maad soo ogtihiin wadamo badan oo soomaalida ka muslim badan inaan la taaban sida nigeria oo kale marka macnaha dhalashaha waxbaa ku jira meesha 7 waddan nin sheekha carabaniyo hadda ma aqaan meel u aaday oo galbeed ahaa oo aad dadkii u codin jiray muslimiinta dhowr iyo 10 sano kahor wuxuu sheegay in 7 waddan ay ku jiraan buu yidhi dadkii faraca nebiga ahaa ama dadkii yacni banu haashimka ah ama ahlubeytka loo yaqaano ogaada nin qoladan shiicada iyaga ahlubeytka lagu fitneeyey laakiin haddii dadkii rasuulka sal ly slam inaan jeclaano waa sunno waxaa kaloo sunnaa oo nebigu yidhi sal ly slam dadka reabtiga kuwa iyagana waa sunne saasoo kale ah marka dadka ahlubeytka ayaa ku badan baa layidhi maxay marka u xasuuqayaan baa layidhi maadaama ahlubeyt ku badan yahay wuxuu yidhi ninkani mahdiga ayay ka baarayaan 7 waddan soomaaliyana waa qayb ka mid a anu cilmi bale intaa ka badan laakiin waa idin soo sheegun xadiiska waxaan garan karnaa nebigu sal slam uu sheegay in carabta halaag ku sugnaaday in yajuuj majuuj carab u qabaan waxaana hadda tusay casharadii hore tusay in boqortoodii khazaariya 100% ay ahayd yajuuj majuuj ayna yuhuud noqdeen okay marka khasaarka aawo marka khasaarkii maanta waa kuwa israa'iil jooga marka haddaan xusuusiye carabta akhyaari waxa weeye masaaxiib bay leeyihin soo xasuuq kuma hayaan soomaaliya waa qayb ka mid ah soo qayb ka mid ah wey waxaan neytay lagu leeyahay maraykan kulli wax dhan israa'iil bay soo abaabshanayo maraykanka lagu sheegaa waa kelinka lixaad ee israa'iil ha ku sirmin soo xadiiska nabiga sal ly slam iyo maanta waxa dhacaya isma qabanayaan fiiri arrintan iyo arrintan hadday isku kaa qaban waayeen arrinkaas sheeg socoo kama jiro anigana waxaan soo hadda nebigu inuu yidhi sal allahu alay wasallam xadiiskaas tejer buu saxiix bukhaari ku jiraa fiirsada baadha inuu nebigu yidhi sal ly slam carab halaag baa u sugnaatay sharta soo dhowaatay waxaana intusay dadkii nebigu uu saa ku leeyay uu ku ahaa nebigu muuse dhin waa khasaar laakiin anaa taariikhda intu ku tusay iyagii baa loo tegey iyagii baa sheegtay hadda rabbaygooda intusay inuu ku leeyahay khasaarku halkaasaan deganaan jirnay dhulkaasaan degi jirnay waana kuwii derbiga jibiyaan idiin sheegay haddana waa yuhuud cadawaddii carabta u qabaanna waad aragteen eeg hadda israa'iil soo ma ogid afrikaanka balaag muslimka saaxiib bayba leeyihiin iyo caddaanka muslimka sida turkiga saaxiibkooda koowaad ee caddaanka mataqaana midku yahay waa azerbaijan iyo albania soo ma ogid marka waxay cadawad u qabaan yajuuj majuujka oo ahna yuhuudan hadda israa'iil joogta carabta xadiiska nabigaana sheegay laakiin culimadeedna ma dhihi karaan waayo culimadeenna hadduu masaajid dhisanayo hadduu mawlac yar samaysanayo hadduu wax samaysanayo wadaad caraba oo imaaraadka ama qatar ama sacuudiga ama baxrayn ama meelaha jooga ayaa boorso lacag u haya wadaadkaasina asalkiisu waa turki mana doonayo inuu ka sheekeeyo waxan bointiguna waa halkaa weligoodna ka sheekeyn maayaan ilaa ay financial independent noqdaan ama sidoo kale ay yihiin dad xora oo cilmiga maaragtay independent macnaha knowledge collector ah dad si madax banaani oo xornimada cilmiga u ururiya taasina adduunka way ku yarta waayo adduunka naclada ku dhacday adduunyadani lacag baa laisku gumaystaa nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam adduunya malcuuna adduunyada waa la nacday waayo cilmigii lacag iyo maal baa lagu qariyay ma hadli karaan marka akhyaari intaasaan idiin sheegayay yuhuuddan maan joogta khazaar baa la dhaawaa yajuuj majuuj waqtigii nebiga la sii daayay sal allahu alay wasalam sababta laynooga qariyana waxa weeye 800 oo sano adugu maaragtay ugu yaraan 700 oo sano ayaa qabiiladii yajuuj majuuj ah oo uguus ah waxaas dhan ahay ayay dowladda islaamka inoo sameeyeen khulafada iyaga xukumayey ilaa iyo maalinkan maanta ayna hadlayaan adduunyada muslimka iyaga ayaa xukuma kolka naloo sheegi maayo waa laynaga qariyey akhyaaray wixii commentiga ama wixii su-aalaad qabtaan ixtiraam iyo respect leh hoos igu reeba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لا إله إلا الله